Assalaamu calaykum. Waxaan soo koobaynaa maanta filim zombie ah oo lagu magacaabo Day of the Death. Tuuladan waxay ka tirsan tahay gobolka Colorado ee Mareykanka. Waxaa ku haray dad yar kuwaasoo isku daya inay naftooda la baxsadaan kadib markii ay gacan ku haynta la wareegeen zombie gaajeysan oo u ooman dhiigga dadka. Nina iyo Trevor ayaa ku ciyaaraya qol aad loo sharaxay oo ka tirsan guriga Trevor saaxiibkiisa Kyle iyo lamaantiisa ay degan yihiin. Kyle wuu qufacayaa isagoo ku guda jira howl, laakiin sheekada ayuu iska sii wadanayaa. Nina waxay doonaysaa inay ka baxdo dhismahan xilli Trevor uu daba kacayo iyada. Xadka tuuladan buuq badan ayaa ka taagan saakay. Gawaari ayaa ku jira leeman dhaadheer kuwaasoo sugaya inay wadada furanto si magaalka ay u aadaan, laakiin ciidan ayaa hortaagan. Ninkan wuxuu isbitaalka ugu wadaa wiilkiisa magaalada, balse kabtanka ayaa u diidan inuu baxo. Askariyada Sarah lagu magacaabo ayaa kula talinaysa isbitaalka tuulada inuu geeyo. Nina iyo Trevor waxay ku noqdeen aqalkooda. Kyle sanka inuu dhiig ka keeno ayuu bilaabay isla markuu istaagaba. Kyle iyo Nina ayaa ku baxay gaariga Trevor xilli Kyle saaxiibtiisa ay guriga u soo lugeynayso. Waxay dareentay qof inuu daba socdo. Way cararaysaa, laakiin meel fog intay gaarinba dhiiqa ayay ku dhacday. Ciddii daba socota ayaa ka soo jeeda halkaas, iyadoo aan aragno cad hilib ah oo dhulka ku soo dhacaya. Askariyada lagu magacaabo Sarah waxay walaalo yihiin Trevor. Waxay timaaday guriga iyadoo Nina iyo walaalkeeda ay ishurgufayaan. Waxayna u sheegaysaa in hooyadooda ee xaalkooda ay ficneen ayna ku jirto qolkeeda. Sarah ayaa booqanaysa maamada. Qandho daran ayaa Sarah ayaa Trevor u sheegtay in maamada uu sii labiso uuna sugo intay ka soo noqonayso si isbitaalka ay u geyso. Sarah waxay sii maraysaa Kyle maadaama Nina ay sheegaysay inuu duray qabo asna. Waxay soo aaday dhankiisa. Markay guriga imaatay waxay aragtay wax walba oo isku daadsan iyo dhiig ku xardhan derbiyada. Hore ayay u sii galeen iyagoo helaya meydka waalidka Kyle oo wajiyadooda la raamsaday. Sarah booliiska ayay wacaysaa. Waxay intaa kadib u soo noqonaysaa qaadista hooyadeed iyo walaalaheeda. Intay wadada ku sii jiraan, maamada dhiig ayaa ka imaanaya sankeeda. Ugu dambeyn isbitaalka ayay imaadeen. Waxaa buux dhaafiyay dad badan oo dhammaan wada jiran, haystana calaamado isku dhafan oo xanuunku keenay. Kabtanka ayaa dhinac ula baxay Sarah si ay uga wada hadlaan xaaladda taagan. Nina iyo Trevor waxay booqanayaan Nina aabaheeda oo isbitaalka la keenay asna. Bud ayaa la jooga Sarah hooyadeeda. Arrin iyada ku saabsan ayuuna kala hadlayaa. Hadalka ayay si baqdin leh u joojisay. Dhinacyada ayuu eegayaa, wuxuuna arkayaa dadka dhan oo bixinaya fariimo isku mid ah. Wuxuu u degdegay Sarah wicitaankeeda. Qolka shaybaarka Sarah iyo kabtanka ayaa kala hadlaya dhaktarka wax ku saabsan jirka dhintay ee Kyle waalidkiisa. Trevor iyo Nina waxay la joogaan aabaheed. Si kadisa ayuu hadalka u joojiyay. Waxaan aragnaa unugyada maskaxdiisa oo fayrasku soo weeraray. Indhihiisa waxay bilaabeen inay bedelmaan, wejigiisana uu doorsoomo. Si dardar leh ayuu u weeraray hooyadeed, wuxuuna ka qaniinay daanka. Tuuladan qas ayaa ka qarxay. Waxaa meelaha jooga juudaanley dadka cunayso. Fayraska ayaa ka dhigay dadka zombies. Xarunta idaacadda tuuladana daadiyaha iyo askari ayaa ka arkaya daaqada dadka oo midba kan kale cunaya. Waxay soo aadayaan banaanka. Askariga juudaanta ayaa qaadanaysa xilli daadiyahana uu orod ugu soo noqonaya xarunta isagoo albaabada xiranaya. Isbitaalka zombieska ayaa gacanta ku dhigay cid walba. Xanuunka ayaa siiyay awood khatar badan, taasoo u ogolaanaysa inay ordaan, ka boodaan masaafooyin dhaadheer oo ay ku gurguritaan saqafka sare. Nina iyo Trevor isbitaalka ayay ku dhex ordayaan iyadoo juudaantu ay ceyrsanayso. Si walbay ahaataba way ka soo baxsadeen. Kadib waxay soo dhex mareen keynta iyagoo soo gaaray afaafka hore idaacadda. Halkaas waxay ka arkayaan qof daaqada kore ee dabaqa isku qarinaya oo isku diyaarinaya gudaha orod inuu ku galo. Dhanka kale, isbitaalka kabtanka juudaanta ayaa afduubtay oo way cuneen, laakiin qolka shaybaarka waxaa isku qarinaya Sarah, Bud iyo dhaktarkii. Bud furaha gaarigiisa ayaa ka dhacay intuu zombies kala dirirayay goor horeysay. Sarah isaga ayaa u socda qolkii lagu dilay kabtanka iyagoo raacaya tubooyinka saqafka sare si ay u soo qaataan furaha. Halka Nina iyo Trevorna ay gabaad u raadsanayaan idaacadda iyadoo wariyaha uu u ogolaaday inay gudaha u galaan. Laba qof oo kale ayaa kaga sii horeysay xarunta, laakiin kuwaasi waxay qabaan cudurka oo way qufacayaan. Sarah iyo Bud waxay soo gaareen qolkii kabtanka joogay. Waxay gacanta ku dhigaan furihii. Waxay ka soo baxsanayaan jeebkiisa hub. Markay sii bixi rabeen, kabtankii ayaa noqday zombie. Wuu soo kacay. Bud ayuu ka qaniinay calaacasha. Sarah waxay uga shubaysaa kiimika nabarka si uunan u saameynin cudurka. Salazar ayaa isku daya inuu toogto maadaama zombie isku bedeli rabo, laakiin Sarah ayaa ka hor istaagtay. Dhanka kale, Trevor oo ka soo hadlaya idaacadda ayaa ku dhawaaqaya inay caawin ka rabaan cid walba oo maqlayso, iyagoo sheegaya halkay joogaan. Sarah iyo kooxda ayaa isku dayaya inay ka ordaan isbitaalka, laakiin waxaa soo weeraray xayn zombies ah oo wadada u galay. Waxay heleen in toogasho madaxa ah ay u dhammaynayso juudaantu. Dr. Logan inan ayuu ka badbaadiyay gacanta juudaanta. Gaariga ayuuna kala baxsaday
baxsaday isagoo ka tegay asxaabtii kale. Markay xoogaa isdifaaceen waxay ogaadeen in dabka sidoo kale uu dili karo zombieska. Ugu dambeyn gaariga kabtanka ayay ku baxsanayaan. Si walbay ahaataba juudaanta bagaaliha ayay koreen. Saaraha gaariga ayay leexleexinaysaa si ay dhulka ugu soo dhacaan. Wadada intay ku sii jiraan waxay arkayaan zombieska oo rafaadinaya dadkuna cunaya jidadka dhexdooda. Hal zombie ah ayaa isku dayaya inuu u dhaco idaacadda isagoo ka koraya jaraanjarta baxsashada degdega ah, laakiin Trevor ayaa ku soo tuuraya miis oo soo ridayay juudaanka. Niinaha waxay aragtay tiish dhiig leh oo ku jiro baaldiga wasaqda. Sarah, Bud iyo Salazarna waxay gaareen dukaanka hubka. Salazar gudaha ayuu galay halka Sarahna ay gacmaha ka sii xirxiraysa Bud lacalla hadduu zombie isku bedelo. Waxay soo qaateen hub. Markay ku soo noqdeen gaariga, Bud wuxuu isku bedelay juudaan. Salazar inuu toogto ayuu isku dayay. Sarah ayaa celisay oo u sheegtay inuu wax tari karin maadaama ay ku dhuujisay xariga. Halkaas ayay ka sii safreen. Tuulada inay iskaga baxaan ayuu qorshahoodu yahay. Intaa kadib Sarah waxay daartay raadiyaha iyadoo maqlaysa codka Trevor oo caawin ka soo dalbanaya idaacadda. Gaariga ayay kala wareejinaysaa iyadoo caawintooda u noqonayso. Dhismaha uu ku jira daaqadiisa ayuu Trevor ka arkayaa hooyadiisa oo kaligeeda dariiqa socoto isagoon ogeyn inay juudaan noqotay. Wuxuu u cararayaa inuu soo geliyo gudaha. Sarah intay gaariga wado waxaa jidka ay kula sii kulmaysaa zombie tiro badan. Niina inay Trevor joojisa ayay isku dayaysaa iyadoo u sheegaysa in laga yaabo maamada inay xanuun ku qaaday, laakiin isagu albaabka ayuu balaqayaa. Xaggeeda ayuu u ordayaa. Markuu u sii dhowaado wuxuu arkayaa in hooyadii ay noqotay zombie. Way soo weeraraysaa durba, laakiin Sarah iyo kooxdeeda ayaa waqtigii fiicnaa yimid. Halkan Sarah ayaa dulmarisay gaariga hooyadeeda si ay walaalkeeda u badbaadiso. Trevor wuu naxay oo shoog ayuu galay. Sarah waxay ku qancisay in gebi ahaanba hooyadooda hadda aysan ahayn. Sarah waxay Niinaha ka codsanaysaa in dadka dhismaha ku jira oo dhan ay iskugu keento biyaanada hoose si ay u badbaadiyaan. Niinaha kor markay aaday cidnaba ma joogin. Hore ayay u sii dhaqaaqday. Waxay aragtay nin dhulka jiifo oo wejiga zombie ka fiiqdeen. Waxaa gadaal ka soo istaagtay haween juudaan ah. Niinaha markay soo jeesataba waa lagu booday. Trevor kor ayuu u orday. Niinaha way dagaalamaysaa iyadoo iska celinaysa juudaanta. Isla markii waxaa soo gaaray Trevor oo daaqada ka tuuray zombiga. Sarah ayaa u yeertay Trevor iyo Niina inay si degdeg ah hoos u soo gaaraan. Zombieska ayaa ku soo orday oo meel dhow u soo gaaray, laakiin gaariga ayay galeen. Bud weli gaariga ayuu ku dhex sugan yahay, mana isku dayay inuu cuno asxaabtiisa. Salazar wuxuu ku wareersan yahay sababta. Xuduudka ayay istaajiyeen gaariga si ilaalada booliiska ula hadlaan. Sarah ayaa gacanta u haatisay booliiska oo uga haatisay daaqada. Ninka booliiska wuu soo weeray dhammaan ciidanka waxay noqdeen zombie. Trevor ayaa soo baxay oo xabadeeyay. Salazar ayaa soo dabadegay oo sidoo kale tooganaya juudaanta. Xayn kale oo zombie ah ayaa dhinaca ka soo weeraray kuwaasoo hub wataan. Kooxdii si degdeg ah ayay gaariga ugu laabteen. Israsaasayn yar kadib maadaama xuduudka go'doonsan yahay kama bixi karaan tuuladan, dib ayay ugu noqonayaan. Trevor iyo Sarah dood ayaa dhex martay oo ku saabsan qaabka ay ku badbaadi karaan. Intaa kadib Kyle ayaa ka soo baxaya keenta oo ku soo boodaya gaariga. Sarah inay qaboojiso ayay isku dayaysaa, laakiin geed ayuu ku dhacay gaariga wuuna joogsaday. Gaariga ayay ka soo degeen waxayna dilayaan Kyle. Maadaama gaariga shaqaynayn hadda waxaa qasab ah inay lugeeyaan. Waxay qaadanayaan hub intay awoodeen waxayna bilaabayaan socodkooda. Waxay soo gaarayaan guri laga qaxay. Si kadisa ayuu Bud ku bilaabayaa qeylo. Sarah inuu aamuso ayay ka codsanee laakiin ma sameynayo. Intaa waxaa raacaya zombie ayaa soo jebiyey daaqada alwaaxa ah isagoo ku dhagay Sarah. Way iska fujisay xabad ayayna madaxa uga dhufatay, laakiin tiro juudaana oo aan xad lahayn ayaa guriga soo galay. Bud ayaa hor istaagay iyagoo u arkay inuu ka soo horjeedo ayay dileen Bud zombieski. Intii kale ee kooxda ahayd ayaa ka baxsaday goobta. Waxay galeen guri naqshad casri ah u dhisan. Way ku wareereen bilowgii laakiin way isku fidiyeen. Waxaa yaala halkan tiro kumbiyuutaro ah iyo aalado koronto ku shaqeynayo. Waxay maqleen dad hadlaayo waxayna ogaadeen inay keligood ahayn. Sarah iyo Salazar banaanka ayay uga soo baxeen qolka si ay u hubiyaan xarumaha kale. Waxay soo galeen qolkan. Waxay arkeen kiimikaad iyo daawooyin gasacadaysan oo sursuran oo isku qasan oo meelaha yaalo. Waxaa ku jira Dr. Logan. Qolkan ayuu isku qarinayaa. Wuxuu u sheegay in zombie iskaga qarinaya halkan, laakiin labadan kale waxay aaminsan yihiin wax uu dhoobdhoobaya inay jiraan. Waxay heleen warqad ay ku qoran tahay mashruuc lagu magac daray Wildfire oo magaca Dr. Logan ku xariiqan yahay. Sarah biskoolad ayay ku qabatay. Wax walba inuu sheego ayay ku qasbaysaa. Wuxuu u sheegayaa isagu inuu qayb ka yahay koox xal u raadinaysa cudurkan. Isla markiiba Trevor ayaa la yimid cajal oo uu ka soo helay qolka. Muuqaalka dhakhtar ayaa ka dhex hadlayo oo sharaxayo hub biology ah oo cadowga lagu burburinayo. Shay'aashaas oo waqti cayiman ku joojinaya habsocodka neerfayaasha bini'aadanka, laakiin iyadoo si qaldan loo gudbiyay daawada ayaa hadda qof walba oo lagu duraa suntaas uu noqonayaa zombie. Inta uu ka hadlayay muuqaalkan dhakhtarka ayaa isku bedelay zombie. Iyadoo kooxda ay ku socdaan gudaha, dhakhtarkii zombiga noqday ayaa saqafka kala baxaya Dr. Logan. Jirkiisa ayaa
hortooda kusoo dhacaya. Kooxda ayaa isqaybinaysa. Sarah iyo Salazar waxay arkayaan qolka sirta. Gudaha markay u galaan, Juudaanta ayaa soo weeraraysa. Salazar ayay qaadanayaan, laakiin Sarah ayaa ku baxsanaysa farac dile. Nina, Sarah iyo Trevor ayaa hadda soo haray, kuwaasoo ku sugan qol ay ka heleen booyada gaasa. Sarah waxay soo bandhigaysaa in dhammaan zombieska ay iskugu keenaan hal meel oo ayna ku gubaan booyadahan yaryar ee gaaska ay heleen. Sarah waxay u soo baxday inay soo habowsato Juudaanta, laakiin doktorkii ayaa ka hor yimid oo qabtay kuna dhow inuu dilo. Isla markiiba Bud ayaa bilaabay inuu xabad ka soo dhex rido Juudaanta dhexdooda. Doktorka ayaa weeraray isaga oo ka tegay Sarah. Intaa kadib way carartay Sarah iyadoo isku keenaysa zombieska oo dhan. Qorshihii wuxuu noqday sidii loo rabay mid u dhaca. Juudaantii way gubteen. Ugu dambeyn banaanka ayay u baxsanayaan, waxayna wateen gaarigii Dr. Logan. Filimka ayaa ku dhamaanaya zombie soo weeraray kaamirada.